اوكي marka guulada ala xashadeen weydiinaya waqtiga ugu horeysay oo gabaygan uu bilaabay iyo waxyaalaha ku kalafay waqtigaas gabayga uu bilaabay guulada ala xashiyo goorma ugu horeysay gabay aad tirisid waa maaqsan tahay horta soo dhawaada maadaama marti guriga u tihiin soo dhawaada marka labaad waxaan tiriyay gabaygan 92gii markii ciidamadii faraha badnaa ay Soomaaliya tageen baan gabayga tiriyay اوكي marka gabaygaas ma gabaygu kugu horeeyay oo aad tirisid ba mise gabayaal ka horeeyay aad tirisay ba jiri ma gabaygan bay ugu horeeyay gabaygan tiriyay اوكي waxyaalaha ku dhiliyaan waxay ahaayeen dhibaatooyinkii iyo burburkii iyo hadii la ku kala qaxay Soomaaliya iyo waxaas ku kaliftay taas ay ugu horeysay markii hore horta waxaan ka qaxay 92gii waxaan ka qaxay magaalada Xamar oo deganaa waxaan u qaxay magaalada Kismaayo 91kii markii hore ahayd markii dambe 92gii baan ka soo noqday Xamar waxaan arkay marka waxyaalo badan oo dhibaato ah oo wadankii ka dhacaysa markii ciidamadii isugu yimaadeen faraha badnaa awlow hadii aan warbixin ku siiyo anigu markii hore Soomaaliya waxaan ka shaqeyn jiray wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa lama ogolaan jirin dhirta in la guro dawladdu waxay u qortay shaqaale waxaan markaan Xamar tagay arkay dhirtii oo la boobayo oo la gurayo markaan gabaygan tiriyay waxa igu kalifay anigoo ka tagay ex control oo ku sii socda gurigii maslax uu lahaan jiray meel ah oo halkaas dad joogay baa waxaan arkay baabuur halkaa iyo afkooya ka timid oo wada dhuxul baabuurtaas oo ilaa 35 ilaa 40 aan qiyaasay marka dhuxushaas maadaama wadanka laga guri jiro dadka shaqaalaha ilaalin jiraan kamid ahaa runtii aad baan murugooda ilma iga soo daadatay waxaan kaloo arkay dhulkii oo la boobayo ugaadhi iyo xoolihii iyo cid walba oo dadkii wadanka dawladihii yimid ama dadkii wadanka u dhashay dhulka ay boobayaan taas gabayga u kaliftay اوكي هذا gabayaashaadii gabayga ugu horeeyay aad ka tirisay insha Allah ma maqashin kartaa bas ka duubi karnaa yes ha اوكي هذا waxaan diyaarunaa inaan ka duubno gabayga ugu horeeyay oo hadii la hadno aad ugu talgashay arrinkaas insha Allah horta waan maadsantiin waxaan jeclahay dadka daawan doona gabaygan ama idinku hadii oo gabaygu meel dhaliil kale yahay ma ahayn gabaya laakiin waxa igu kalifay wax aan arkay marka gabayga magaciisa waxay ahayd baylaha dhulkii oo macnaha inaad bayla tahay gabayga sidan ugu dhacay boqoro walahayo wadaan ku baryo tamay adigan baxayno rabo abid buu konayni dal burburay dal baabay dalka badiyo cayrtoobay badiyo xuma laha babaanay barawina siyaadkii markuu baxay habeenkiiba barwaaqiyo ina nabad hela baahi loo qabay bulsha caafimaad la rabno badan ku seexday biri qaatay iyo tuug markii boonka la afuufay balii markii la isku diray ee bambaadu qiiqday barbaartiina goortay dhinteen bahal ku dheeraasay baadiye buriyo toriyo bangad loo hordaya balaya cibaatimi dadkay badiyo layeeni balaya cibaatimi dadkay badiyo layeeni boqol shilin qofkii haysibi baaska maariyeeni beri abuura ileen booba oo dhacay barqabkiyo hashii soo dhashay wada bireyeeni annagoo basayno abaar baanu ay taalo boqolaalanay maalinkii baahi dhimanayso buushbaa adduunyada ku yidhi waanu baxayay beriisiyo ana daawasiin wada barwaqayni badanaata iyo xuluufadiiba bug soo tidhi boqoshada markuu Xamar ku tagaye bariga eegtay badda weynankeediyo markuu baadhay guudaheeda bosku maalinka dagi lahaa buu bidhaansaday baholyo dhulkaygo wileen bay labaatahay baholyo dhulkiyo wileen bay labaatahay wanka badhida weyliyo orgiga bararaye naxay Pakistan inuu gowraca waa waxaan baday baruuriyo lagibay cunaan balaxsanayaani baradhiyo babay baa u yaalin bambeelay bawdkana caruur baa u fadhida bahile aniye bursaloolan bay sugahayaan una booriyay baholyo dhulkaygo wileen bay labaatahay bacaadkii iyo ciidiyo wixii birayno yaalay bilcilkii iyo geedkiyo ilaa qurac ballanaba baasiin intii lagu shubo bangad lagu goostay baldoosiyo intay cagaf gasheen miina lagu baadhay dal waluba barhku rabo ayay badi u qataani baholyo dhulkeeno wileen bay labaatahay
bicidiyo ugaadhiyo sagaar badatayo nacday boqolaalan diin baan lahayn cid u banayne malay baaxad weyniyo wixii badaha noo yaalay dal waluba badhkuu rabo ayay badi u qataane boholyow dhulkeen oo wileen baylahbaa tahay burca iyo hargeysiyo ilaa tan iyo boosaaso basuukaha wixii laysku ridaya bambaadu qiiday banaanada dadkii daadsanaa baaska laagu jeexay boqolaal kun bay gaadhayaan oo bilaahi ahe boholyow dhulkeen oo wileen baylahbaa tahay bartagaalkacyood iyo hob iyo buurta xaara dheere beledweyne waatuu ka dhacay bay iyo hoogigii banaanada dadkii daadsanaa baaska laagu jeexay boqolaal kun bay gaadhayaan oo bilaahi ahe boholyow dhulkeen oo wileen baylahbaa tahay balcadiyo haddaan jawhariyo xeebta baari raaco war banaadir baydhaba wixii b m ka yeedhayay banaanada dadkii daadsanaa baaska laagu jeexay balyan bay halkaa gaadhayaan oo bilaahi ahe boholyow dhulkeen oo wileen baylahbaa tahay burdhubiyo buaaliyo ilaa bundadiyo buaaliyo ilaa bundadiyo hawdka baadkii kismaayood wixii laysku wada boobay barooniyo shilkaa lala galoo bixina mayaane banaanada dadkii daadsanaa baaska laagu jeexay boqolaal kun bay gaadhayaan oo bilaahi ahe boholyow dhulkay oo wileen baylahbaa tahay bosla qaatay baabuur gubtiyo beer la kaala xoogay baladii lasoo maray ileen waa baabinoo qorane calankii buluugowe ka waa la baayacaye bidhi qaate iyo tuug dhulkii waa u ballamayaane bohoshii gumaysigu qodaan noo banaan waliye bilcaniyo barbaarkan dilaan biri ma moodnaye bahal iyo waraabayna cuni baaqigii hadhaye bii waaya soomaaliyay bixiya ciidiina boholyow dhulkaygo wileen baylahbaa tahay aad baad umahadsantihiin gabaygu intaasuu yahay waad mahadsantihiin saaxiibayaal insha allah haddii ilaahay idmo oo gabayaal badan oo dambe ayaan insha allah haddii ilaahay idmo aan ka qaadi doonaa marka insha allah kuwa dambana cabdi baan ila soo socodsiinana haddii ilaahay idmo aad iyo aad ayaad umahadsantahay marka waa ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu